ماشي جامعة أنا كده جناي صدق أفر بلاد ممكن جامعة دي جناي مالين نين صوماليا أو كيمت أو كتاب وين وطا كتاب وطا دكتور وديارنا وارث كتاب دكتور هذا لو قرب بوقت لو قرب بوك رتل لو دل استيري ولا أنت كقبو أو وطا وربل ماشي مساجد كان اسكو وريسنay markaasaan irxay ka timid oo Kenya ka imid hay shalay yani mid xagee meesha hadda maxaa meesha u timid meesha waxaan u imid uu yiri mushrifkeygii supervisor ka way macnaha ninkii kitaabka ila qorayay oo hadba ila saxayay kitaaban qorayo ninkaasaan rabaa inaan meesha kula kulmo jaamacadan macnaha waxa way ka diiwaan gashanahay oo admission ka haystaa oo buugan qoraa marka wuxuu buugaasan qoray hay ma qasanaad qoraysa أفر سنة قراوي سائر حاجات وحكي قريب سؤال رأيت اللي دي ينقرأ نيكي ينفيري واحد مرة اللي دي أفر سنة قريب ها روح يعني رأيت اللي دي أنا الصبح عن الله أخذك تي أنت صباح عن نحف دي حاجة الله إنكار قبل أفر ما رأيت اللي دي ما رأيت اللي دي أفر سنة كم مشغول صنطة نيكي ninkii waa qoslo waxa uu yiri xagee ka tibniyo waxa Soomaali xagee way fiirinaad waxa ay Soomaaliya gobolada dhaxan ka imid wuxuu yiri hadda basalada aad hadda i weydiinaysid hadda kuu sheego hadda ma fahmi kartid laakiin markaad jaamacadda 2 sano ama 3 sano joogto kadib ayaad fahmi doontaa masaladan hadda aan ka hadlayno jawaabteeda markaas aad helaysaa wuxuu yiri ra'aytilidii waxa ku jira xukunka gaalada oo dhan nooc gaaladu tahay qof kasta qiyaamaha beeniyay oo ama munaafiq ah oo qalbiga ka jirana gaalnimadu qalbiga uga jirto ama si calaaniya u daahirsaday xukunkiisa ra'aytilidii laga qoraawi qofka agoonka xoolaha u diida iyo agoonta xukunkeedana ra'aytilidii ku jirtaa weey masaakiinta xukunkeeda iyo dadka masaakiinta aan wax ku boorino wax siinna meesha wuxuu ra'aytilidii ku jiraan dadka dukanaya oo wuxuu yiri salaada shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo nooca salaadta oo dhan ra'aytilidii ku jirtaa weey dadka salaada halmaansan oo khushuuci ka tagay oo aan salaadii ka dhex khushuucsanayn xukunkeedu wuxuu ra'aytilidii ku jirtaa dadka muraa'inta oo acmaashoodii dadka la isku tustayo qalbiga macnaha waxa waaye aan ilaahay darti uga jeedin ru'yadu ay ku jirto ru'yo iyo sumca wax leeyahay wax qalbiga amraadda ku dhacda oo jirooyinka qalbiga ku dhaca qayb kamida waa dadka wuxuu qulubta ka jiraan oo muraa'inta oo amalkooda ilaahay ula jeedin ra'aytilidii laga dhaxla maacunta iyo wax maacun la yiraahdo iyo dadka diidana ra'aytilidii ku jirta waxa soo dhan waxa ahadiistu ka qabto iyo waxa quraanka tafsiirtiisu ka qabto iyo ijmaaca islaamku waxa uu ka qabo iyo waxa madaahibtu isku khilaafsan tahay iyo inta la isku waafaqay oo dhan laga rabo inaan soo qoro kadibna wuxuu maadaama academic aan ahay aniguna fikriga aan leeyahay inaan meesha ku soo qoro warqabla ma waxa waaba yaabo ninkii markaas ay walbagaabka la galanayo marka waxaan uga jeedaa qof kasta wuxuu u baahan yahay waqtigaas anu ra'aytilidina waa aqaanay tafsiirkeedana waa aqaanay laakiin inay mugga intaan la eg iyo culayska intaan leedahay iyo waxaan war kama aanan haynin kadib laakiin waa ku qancay markaan meelo badan iyo waxyaabo badan aan ka ogaado